السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. داود يا الكلام توعنا وناكسن هل كان نقدر نسأل أبو علي ميدي هذا النوح رنا سبسكرايب هذا النوح رنا فيديو لايك سارسيني شير قري ورد دقة وحاول حاجة على مرور من رنتك هذا لكن مقالك وحاول مقال عجيبة وحأرك جري مدحوين كل واقع محل يجري مظاهرات أما مشرح مركز كسور جيدو معناها معلومة بقى ورك السعودي وحأركين يعني مشرحين تا وكسور جيدو دولة فرماجو inay ku dhawaaqayeen mudaaharaado laakiin hadda sheekadii way ka duwan tahay muuqaalka aan moodo dhameystiran laakiin waxa arkay saaxiibkeyga Sharma Boy ninka la leeyahay Bilal Bulshaabi iyo waxa kale oo kula jiro Umar Jaaja oo isla taagan waxaan isdhahay caaw dadka maxay sheegi rabaan waxa uu title ku qoran ba mudaaharaad marka mudaaharaadka ay noo wadaan Sharma Boy iyo maxaa la jiray ninka la leeyahay Bilal Bulshaabi iyo ninkan kale magaciisa waxa la Umar Jaaja aan aragna bal macnaha muxuu ku saabsan muuqaalka ay soo duwan mudaaharaadka midada kale maxaa kab maalmahan waxa arkeen lambar 4 looga soo tagay iyo albaab iga fura ayaga dadka macnaha filim kale ma soo socdo macnaha shaati laga tagay Bilal Bulshaawi shaatigiisa ma wuxuu rabaa inuu kaga tago lambar 4 ama Zobe meesha markaas ayaga mudaaharaadka ay ku qaadi doonaan kulli mudaaharaadkiina wuxuu yahay wuxuu ku saabsan iyaga noo sheegi doono mudaaharaadkooda marka hadda aan bilaawno bal ila daawada. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وعلى بدبادة الشعب الصوماليين يدلك الصوماليين وتاجن إنه بدباديان دلك هذا يدلك هذا وحمانت أقوى الرواقنا مظاهرات خصوصا سن إن دلك اللي بدبادي كان دنا متك معارض متك الدولة أوكي مظاهراتكم حلا لابد نعم مجرو كان محافظ كان معنا الله كنا معناها الدولة معنا مظاهرات وحلا هاي لابد نعم أنجرين marka magacan oo isku bixiyeen waxay dhaheen magaca adii urur dhalinyarada saas amal I don't know waa ilaawe halii hore igu qaata marka waxay dhaheen macnaha Sharma Boy waa sheegay wuxuu dhahay mudaaharaadkan labada dhinac ma jiro dawladana ma jiro kan farmaajina macnaha ma taabacsana kan mucaaradkana ma taabacsana okay hay muxuu taabacsan mudaaharaad dhalinyarada baan wadna anaga hadaan nahay dhalinyarada Soomaaliyeed dhalinyarada Muqdisho waxaan ku baaqaynaa mudaaharaad ka dhan ah midka labada dhan dawladda mucaaradka kaasoo ah mid dhalinyaro ee wadato waxaan ku baaqaynaa dawladda madaxda odayaasha siyaasiyiinta waxaan ku baaqaynaa anaga dhalinyaro hadaan nahay waxaan leenahay kuraas iyo xil iyo waxa soo dhan ma rabno idinka idinka qaata laakiin anaga hana loo daayo maxaa la yiraahdaa maatada iyo dalka waxaan leenahay qaata xilalka iyo kuraasta لكن ودن كان نوداي هذه وجدك مظاهرات وافهم مركا وجدك مظاهرات انا والله مقالك ما فيرسن لكن وجدك وافهمي sababtoo ah markii dawlad ay dagaasho ama mucaarad hal dagaasho ama wax kale ama dad markay is dagaalaanba meeshii waxa ku dhaxlumay maatadii dadka ama masaakiinta ahayd iyo waxyaabo badan hadda mudaaharaad oo kale markii la mudaaharaado waxa jira dad ka faa'iideysto inay macnaha carqaladeeyaan meelaha ay ganacsiyada oo kale dad markaas de masaakiin oo ay lahaayeen waxyaabaha noocaas oo kale ka hadlaan hadda waa fahmay ay way mudaaharaadayaan waxayna ka mudaaharaadayaan dawladda macala mucaaradkaba sababta xilkan qof qaban doona bari lama ogo laakiin maanta markii macnaha dadkii xil doonka ah oo mucaaradka ah markii yani ay mudaaharaad sameeyaan dhibaatada imaato aydan la ogeyn bari qofkii oo macnaha imaan doono aan la ogeyn yani qofkii noqon doon ila Allah wa'alam laakiin ayaga hadda si afkooda kaga dhawaajeen oo Sharma Boy ama iyo saddexdan qofood meeshan taagan Sharma Boy Bilal Bulshaawi iyo Umar Jaajaba ay kaga dhawaajeen waxay dhahan anaga waxaan u mudaaharaadeen waxa maatada macnaha maadaama mudaaharaad markii uu dhaco dhibaatooyin fara badan ay maadaan dil macnaha hadii xitaa loo baahdo kufsi macnaha dhibaateyn oo dhan walba ah marka ayaga waxay leeyihiin anaga maatada markii la waayo xayaabo badan isku imaanaya marka okay كوسعدا. شلا أنا نلول نودي سويدين ما أنت أنا جو حد يارونا هنا نلول بسنو جيل كتير صوصة إن شاء الله. مركا هنجا بربرينا وقت كنا هنجا لوميننا إذا قارت كراستا دل كنا نودايا. دارات كنا نودايا بريتول سجاد. بريتول دونا إن شاء الله. سجاد في قلب نمو. ملحينا صدام مشوا كشينا إنك ربع إنه نقدش بالباتسلو إنه عاصمة بالباتسلو إنه قروح بلا دل كواحد دب محل هذا دبلوز حبيبي إنه بدبات سدو هنوع علينا عيل دم مربنا هنوع علينا
colaadda ma rabno hanaguna celinin ceelkii madoobaa aad ogeed aan kasoo tagnay hanagu celinin colaad baan ka daanay dib aan nagu celin dib ina u laabano ma rabno xaqiiq waaye wadankan ay dib loo celin saa ogeedeenba markii burburkii wadanka meeshuu kasoo bilowday hadda waxaan dareennay iftiin yar macnaha wadanka sidii hore ma ahan hadda yani dowladahan kasoo bilaaba xasan sheekh xaqiraad haddaan macnaha jirin xasan sheekh waxay dowladdu way kasii wanaagsan sheekh shariif kasoo bilaabo waxaa kasii wanaagsan xasan sheekh waxaa kasii wanaagsan farmaajo marka haddii xitaa ay dhaceyso farmaajo qofka imaan doona anaga ma naqaano waxaan rajeynaynaa inuu kasii wanaagsanaan doono dowladda hadda jirto ani weli waxaan dhihi lahaa maadaama wanaaga faraha badan oo maanta jiro uu keenay dowladda hadda jirto waxaan dhihi lahaa xilka ha loo daayo dowladda hadda jirto farmaajo hala taageero dowladna ma taageerayno mucaaradna ma taageerayno waxaan taageeraynaa dib u dhiska horu socodka dib u dayactirka dhulka Soomaaliyeed iyo dadka Soomaaliyeed waxaan ilaalinaynaa sharafka iyo karaamada ummadda Soomaaliyeed haddii adiga aad rabto inaad dal burburiso ama aad rabto inaad ku mintito qof kale oo asiga dalka burburinayo annaga intaasba waxaan ka nahay dhexdhexaadaan ka nahay waxaan rabnaa inaan badbaadinna jiilka waxaa waaye halheeskeena waxaa waaye qaata xilalka iyo kuraasta balse wadanka noo daaya soddon sano haddii aan nasiib u yeelo weynin inaan hadalna oo aan nasiib u yeelo weynin maanta anaga nasiib baa u leenahay wadan qurux badan hadda israacsan baa haysanaa ninka doonayo inuu ummadda Soomaaliyeed iska hor keeno Cumar Jaajo wuxuu taagan yahay mudaharaadka meeshuu ka dhici doono madaxweynaha laga xiriiraa asbariyo ka dhigay madaxweynaha adaa kabtaada ka tagi doono go'de adag ku taala laakiin dhalinyarta ah hadalka marka intaas muhiimadu waxa waaye waa dareemi kartiin hadii hadda dhameystir uma baahna muhiimadu waa dareemi kartiin dhalinyarta marka waxyaabaha ay soo hindiseen wallahi wax fiican waaye annaga markii doorasho iyo ay maato iyo xil in la raadiyo waxa mar walba meesha ku dhaxdhumo hadii khilaaf uu imaado waxa meesha ku dhaxlunsan dhalinyartii hamiga lahaa dada maanta jaamacad ku jiro dada maanta iskool dhigto dada maanta maxaa la jiray hami weyn leh marka mar walba waxa meesha ku dhaxlunsan dhalinyartii macnaha maxaa la jiray hamiga lahaa qof walba waxa way maanta marka la bari mudaharada jira xabada magaalada dhinacay ka bilowdaan waxa qof walba maanta qalbigiisa uu noqonaa ilaahay marka wadankan wuxuu u baahan yahay xasilooni wadankan wuxuu u baahan yahay dad isfahamsan wadankan wuxuu u baahan yahay dawlad macnaha ani waxa dhiilaa marka wadanka yaan dib loo celin dhalinyartan waxay sheegeen waa run kulli hadda iyaga waxaan ka sugaynaa meesha mudaharaadku ka dhici lahaa weli lama sheegin Bilal sheegi doona lahay marka Bilal ma sheegi doona sugbal Bilal macnaha ma sheegi doona intaas dhameystira hees arbeeda waxeelada diyaar anagu uma nihin mar labaad iyo mar saddexaad hees arbeeda hal soo hees arbeeda waxeelada qudul manasib wal makaris laakin qallu lil wadan qaata kuraasta iyo masabyada loo daaya wadankeena jamaatadeena annagoo ah dowladda ama midowga badbaadada shacabka iyo wadanka Soomaaliyeed ayaa ku dhawaaqnay banaanbax la isugu soo baxayo in la badbaadiyo wadanka qof walba maanta adoo xilkaas sarayna wadanka badbaadiso dibna u laabanayno horeyaan u socnaynaa annagoona shakhsina taageeraynin dowladna taageeraynin annagaana si gaar isku xilqaana insha Allah waxaan rajaynaynaa in aad nagu raacdaan fikirkeena muhiim fikirkaas inaan nagu qaadan doontaa because adiga Soomaaliya anaga dambe noo Soomaaliya guul mar Soomaaliya noolaa jir oo joog Soomaaliya noolaa goobta ay ka dhici doonto mudaharaadkana madaxweynaha kala soo xiriir insha Allah waa iyadoo waa shaacin doonaa insha Allah mala sheegin goobta mala sheegin waxa raadin goobta ilaa hadan goob lama sheegin laakiin goobta waxa maleen inay gadaal soo sheegi doona bari 9 saac la lahay okay bari 9 saac iyo goobtan wali mala sheegin kulli waa sugeynaa 9 saac ka hor goobta ay ka dhici lahayd laakiin waxa rajayn lahaa inay fiicnaan lahayd inay video kale si degdeg ah soo sameeyaan si aan ku ogaano goobta ay ka dhici lahayd aan anaga dhan wada tagno aan u danin danta dalka iyo macnaha difaaca maatadayna anaga hadaan nahay dhalinyaro waxa waaye maanta hamiga aan leenahay wuxuu yahay in wadankan hamigeenu wuxuu ku xiran yahay in wadankan maanta dawlad uu haysto marka video waxay inta kulmeeno mudaharaadkaas halo istaago wabillahi tawfiiq